ninka Soomaaliga ku fikiraya miswal guurso waayo imanaha fiidiyowga darisla cabdi uu leeyahay miswal ninka guursanaya waa nin noocee ah even haddii nin uu aqbalo miswal inuu guursado ninka reerkiisa ma aqbalayaan reerka aqbalaya miswal inay guursadaan waa reerkee ma jirade laakiin iyada maxaa iska dhisaa isqaaliinaysaa Soomaalida iska sirrisay aan Soomaali sayna farxa laakiin su'aashu waxa weyn yaadi ku rabo mana nin hadduu ku rabo soo waaliga ku Soomaaliga familkiis oo ku marabayaan adiga marka lagu dhaado qoftaas way a'uudu billahi bayna wallahi markaas su'aasha ugu horeysay iyada loo baahan isweydiisay waxa ma kala faarax aan soo oranayaa faarax muu ku rabo hadduu ma fahantooriya aad u bahdilantaan ayada kale anoo bahdilaa mideeda kale misoolinka guursanaya waaye misoolinka guursanaya ma ada irabtid horta ma sheegatid waa ugu sisintay meeqa video alaya soo qaatay niyo video ina ka xiri karmo wid ma ku daaway kar YouTube-kaaga mar dambe ma ay af aalada ku soo tagtida ku dhahay dadka dhashay Nairobi joogan dhashana imo narakata tahay lagu fiiqaa babanu prank ku jilay serious ku noqon iska ilaali gabar cidnan ilaashadaan abargir ilaashadaan ka dhalatay af ku soo taagtay waa nimanaa ku dheelay fiidiyowga darisla cabdi uu leeyahay miswal ninka guursanaya waa nin noocee ah even haddii nin uu aqbalo miswal inuu guursado ninka reerkiisa ma aqbalayaan reerka aqbalaya miswal inay guursadaan waa reerkee ninka Soomaaliga ku fikiraya miswal guurso waayo imanaha hadduu soo waaliya ma xaafadooda ku ogolaan soo ayade waa iska dhisaa isqaaliin laga yaabaa in la yaaban tahay darisla maxaa ka qaldan xaqii gabadhan kala jaan qaaday gabadha maxuusan laakiin arintu sidaas ma aha darisla ma ka hadlayo miswal ma ka hadlayo arrin kale ayuu ka hadlayay oo barnaamij kale ayuu watay marka afka ayaa ka haday miswal oo waxa uu rabay inuu magac kale oo gabar kale uu sheego ayuu rabay waxa uu ka hadlay barnaamijku ka hadlayaan waxa weeyaan barnaamijkan uu soo saaray Babajiga naagtan waalan oo ka soo duubay waraysiga ayuu rabay inuu reaction ka bixiyo dadka dhoo waxaan kala dad looma soo bandhigo saas ayuu rabay marka meeshii uu marka mis qaawan uu dhihi lahay ayuu waxa uu dhahay miswal oo afka ayaa markaas ka haday xaqiiqada ayaa markaas waxa ay tahay in darisla uu ka hadlayo markaas barnaamijkaas kale uu ka hadlayo oo Babajiga uu ka hadlayay YouTube-kiisa hadii aad tagtidna waa ka videoga saaran weeyaan oo ay sawirka naagtan waalan iyo Babajiga sawirkiisa ay saaran yihiin iyo sidoo kale darisla sawirkiisa marka videogaas waxaad geysaa daqiiqada 18 halkaas ayaad markaas ku arki doontaa xaqiiqada iyo videoga meesha uu socday ilaahay buu ku dhaashay ninka imika ku fikiraya waxa tiraan faarax maraba ninka Soomaaliga ku fikiraya miswal guurso waayo imanaha hadduu soo waaliya ma xaafad meesha miswal marka wax hore misqaawan marka kada ninka dad badan waxaan arkay oo unsubscribe iyo unfollow bilaayo ku qabtay marka صاحبي الوشم سيدا أوفير سيدا aqbalaya miswal inay guursadaan waa reerkee magaca ayuu qalday fiidiyowga qaybta hore qof kale uu kaga hadlayay waxyaabo kale uu ka sheekeynayay waana bin aadan darisla cabdi sida darteed magaca miswal baa meesha soo dhax galay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdana fiidiyowgiisa uu ku sharaxi doonaa marka asxaabta waxaan doonayaa inaan idin ogeysiiyo ninka darisla cabdi ah gabadha miswal ma uusan aflagaadeyn waxba kama uusan sheegin waxbuu sharaxayay kadib magaca miswal baa ka soo dhaxgalay meesha aniga bin aadan baan ahayo adiga anigoo doonay inaan ka sheekeeyo baa qof kale magaciisa afka iga soo dafaya sheekadii baan sii wadanaya marka qofna ima ag fadhiyo inta badan waad garanaysaa qofka markuu wax duubayana waa kaligii sida darteed qaasatan dhalinyarada kale ee miswal taageerta ama habar gidir noqdo ama hawiye noqdo ama Soomaali noqdo qabyaaladii sida qaadin oo waxaan dhihi lahaa ha laga laandheereeyo ninka waa bin aadan magaca gabadha afka ka haday sida darteed uu fiidiyowga miswal magaca ugu soo lifaaqay isagoo waxyaabo kale ka sheekeynaya iyadana way og tahay inuu ku qaldamay marka dad is og weeyaan dadka waa nin Soomaaliyeed waa nin saaxiibkeena waa nin YouTuber ha laga laandheereeyo marka qaladna yaa loo fahmay